dhexda dowladda Soomaalida kaasoo markaas lagu ciqaabi jiray dadkii markaas iyagu ku xirnaa xabsigan godkan uu yahay mid markaas suuli ahaan oo bulaacad ah isla markaana qashin madow ku jiro ayaana loo sheegay in dadka halkan lagu hayn jiray intii la galiyo godkan muddo ay ku jireen si markaas looga helo macluumaadka iyo waxyaabo badan oo laga rabay godkan wuxuu ahaa meeshii ciqaabtii igu darayday soo martay maalmihii la keenay 9 bishii Addis Ababa laga soo qabtay 12 mar ay ahayd bishii March 2015 halkan la keenay halka galabtii waxa fadhiyay ninkii la diiday Shamaaxiye madaxweynihii hore Cabdi halkan uu soo wakiishay ninkaas la keenay laba nin oo kala meesha fadhiday inay jihaad indho iyo Cabdiraagan in la yiraahdo xilliga marka ay iga soo horeeyeen nimanka waxa ay silsiladii waa lagu xidhay aad bay u garaacnayeen ana la keenay wara burgabo waliba intuu nasabada caayo waliba wuxuu ugu yiri baad kibirsantaa la tago ugu kan waa la soo qaad halkan la keenay galba la yiri waan diiday waa la maray galba la yiri hadana waan diiday markii labaad markii si fiican lii jilciyay ayaa halkan la isku maraa baadulka la dhigay sana lagu foorarin waa lagu dhigi marka gal hadii lagu yiraahdo ogolaatid xarig baa lagu xidhay halkan wad ka dhaadhici waxaad qabto halkaas aad ku istaagi tiir xaqan aad qabsan marka habeenkii markay tahay 3 jeer 4 jeer baa biyo lagu soo shubay waraa soo bax baa lagu dhihi marka aad meelahan imaatid biyo lagu shubay ho lagu dhihi waraa cuntada waad nagaajaysan tahay laba maalmood oo xunan baa lagu yiri markii ugu horeysay waraa ho baastada kowde minantu yiri ho tibsiga ugu yiri markaan soo istaagay xaqan luuqa ka soo baxay biyo lagu shubay ya meel waxay ahayd run ahaantii aan ilaa hadda maskaxdayda ka tirmaynin waxay ahayd taariikh mugdi oo soo martay keligay ma ahayn asxaabtayda Khaliil ninka Cabdi Dheere la yiraahdo ninana gelin uu nagu yaray halkan horta waxay aan xasan ciyaaleeda waxa ahaa tarqiyaadka siyaasadda ku xidhnaa jeelka ku xidhnaa markii horta la keenay albaabka markii laga soo galiyay waxa ano maaragtay siwaalkii shaarkii ano liintay wiilkaasay ninka jeelka ay sareeyay qaabta badalka soo mariyay marka wuxuu yiri ninka mataqaanaan waa ina ayaga waxa xasan ciga waa ninkii ugu weynaa ninka mataqaan hal qaawiyo dharkii baa laga saaray buumeer baa leeyahay waxa la fariisiyay meel ay halkan haween qorra ka soo galayso dabayshu halkan laga soo farayso oo duduba waxa ku joogay maalintii ameenkii oo dhan baa meeshii fadhiyay dhacantii oo dhan baa u dhacday markii dhacantii u dhacday waxa la geeyay tobankii habeenimo laga saaray waxa la geeyay guri saddexaad la yiraahdo soo qaaba waan qaawanahay waa sibid waxa la igu shubay biyo todoba maalmood baan biyo lagu shubay todoba maalmood waan dhaxjifay kolkaas soo maray taas waxa la geeyay aniga waxba la weydiin maxkamadda inta la geeyay koor meel waxa la geeyay halkaas dadka lagu garaaco foostay taalo foostadii waa lagu qaabay de markii la garaacay wixii laga rabay waxaan niri wanihay garaacay waxa dadkii ma sheegay farayga qaab markii waa la ka soo wixii laga rabay laga qortay ma laga rabay dawladda barbuqandaysay afghan baad sameeysay waxa ay saraakiisha booliska ee maaragtay Cabdi Maxamuud ka soo jeeday sayba lahayd balligu sakala ka adan baad sameeysay lagu inay maaragtay Ciise dhulkii Ciise la bixinay odayaashii abaabushi waaska waxa uu taaligu ama kaari ninka Ciise ka inay adiga weeyaan balligu kiisaska laga rabay waa taas hay koow waa weyn markaan muddo ku jiray la liidaayay kiiska laga daayay kol qaarada la soo ceshay qabadii dharkii baa la siiyay marka laga yartagay marka wax sheegtay waxaas been iyo run iyo lama kala garanay waa dad jaahila waxaan qaabkeedu samaysay iyo waxa mid jirto cid kula sameeyay sheeg ma lagu dhig aniga magacaygu waxa weeye Jamiil Xaaji Maxamed Kaas qolkan waxaan ku xidhnaa 12 bilood baan ku xidhnaa qolkan anigoo kaligiya aan ku xidhnaa kolkii uu horeysay soo saasa sawirkaas yaa lagu xidhay dadka diiwaanka aad aragtay magaciisa ku qoran waa dadkii soo maray qolkan soo maray way ka mid yihiin ruuxa marka qolkan lagu soo xidho dharka banaanka laga dhigi hal dhigis baa laga yaabaa inuu reebo anigu inkastoo dharkiga waan qabay dharkiga waan xidhnaa hallo dharkiga xidhan baa meeshan sidan ayaan la keenay 12 bilood baan deganaa marka qolka ku xidhnaashiisa waxa ay arrimaha iyo qalbigayga marka ku soo dhacaan aan maaragtay walba aad xasuustaada ku reebay waa in xasuusto waxa weeye suuliyadan iga soo horjeeda ee darkiisaan waa 4 suuliyo soo jeeda iyo 4 suuliyo sii jeeda waa 8 suuliyo 8 suuliyo waxa galay oo lagu xidhay dadkii xufaadda ahaa ee quraanka Ilaahay xambaarsanaa ee diinka ahaa ee sharafka ahaa ee ahayd in madaxa lagu qaado kor loo qaadaha kuwa nooca xufaadda ahaa inta dharka laga saaro oo magac lagu reebo oo tuubo lagu garaaco
iyo halkaa hooygooda wuxuu musqusha yadaad arki doontaan halka mitir iyo barhka ah waa musqul 1 mitir iyo 1 mitir iyo barh halkaasuu ninka xaafidkii isagoo nagas xidhan yuu seexan halkaasuu ku tukan halkaasuu qur-aanka ku akrin waxaan xasuustaa waqtiyada qaarkood waqti ka mida yaan dabac musqulihii 8 mid ka mida yirahdeen timirkaa looban kaa galo kaadibaan dabcayn inuu galo markaan dabcayn inaan galo 7 kale waxaa iska qabsaday qur-aankii ilaahay baa laga akhriyayaa anigii intaan argagaxay oo si noqday yaa anigu kaadidii sidoo haystaan iska soo noqday oo waxba kaa jigay way macnaha waxa weeye waa waxyaaba aad qofka qalbigiisa u dhaawacay waa hagaag khayr sida aragtan haatan gudaha waxaan ku sugan lahay qolka 8aad oo markaas mid ka mid ah qolalka dadka lagu ciqaabi jiray qolkan ayaa waxa uu ka kooban yahay 8 qol oo markaas 4 iska soo horjeeda ah aan galno mid ka mid ah si aan sharaxaad idinka bixino inta uu mitir ka kooban yahay sida arkaysaan haatan waxaan ku sugan lahay qolka 8aad mid ka mid ah qolalka uu ka kooban yahay qolkan ayaa waxa uu ka kooban yahay 3 mitir oo dherer ah iyo 2 mitir oo markaas ballac ah waxaan loo sheegay in halkan markaas lagu xareyn jiray dad tiradooda ay gaarayso 40 ruux su'aasha la isweydiinaya waxay tahay qolkan ka kooban 3 mitir ee dhererka ah iyo 2 mitir ee ballac ah miyuu qaadi karaa 40 ruux waa su'aal markaas la isweydiiyo u baahan isla markaana halka laga garan karo tacadiyada goobtani markaas ka dhici jiray halkan waa qol ka mid ah qolalka ugu waaweyn ee loogu magac daray chief iyo joog halkan aad u jeedaan darbigii waan taabtay albaabkan markii la xirana waad arkaysaan istaag ahaan waa sidan halkan ninaan soo marin uu nagu yaryahay waaba qolka ugu weyn qolkan aad u jeedaan sidaa markaan dhaho hadda gacmahaygu isgaarayaan 11 qof ayaa ku jirtay kan ku xiga 13 qof baa ku jirtay waxaa ka mid ah raggii ku jiray raggii amaraarka oo nalif ahaa maxamed anni cabdulla xayraan macallin shuuriye maxamed aadan oo ah nin waxa weeye deegaanka u dhashay oo dhalinyaradii khaladka lagu soo xiray waxbaratay ka mid ahaa 11 qof ay halkan ugu jireen 2008 bishii 8aad halkan wixii ka dhacay wax la soo koobi karo maaha waxay ahayd xilligii ay ugu magac dareen juhuladii meeshan haysatay abay macmiil 4 bilood ayaa lisgaraacay 4 bilood oo kaamil ayaa lisgaraacay ma jecelin halkan inaan nimaano laakiin waa taariikh madow oo leenahay oo marraba aysan bannaanayn in la qariyo ama la daboolo soo galitaanka maanta ay ugu horeysay meesha la soo galo dareenkaygu isbedelayaa wixii la soo mariyay waan xasuusanaynaa wax aad u foolxun oo madow ayaana la soo mariyay ninaan halkan gelin ma jirto waxaan idin tusi doonaa TV joogkii ka sii daraa ee waxa weeye qolkii ugu yaraa ayaan idin tusayaa qolka si fiican u eega qolkan waa qolkii chief iyo joog la dhahiyay magacyada ku qoran waa magacyada dhalinyaradii iyo ehelkii halkan soo wada maray halka duleeshada u jeedaan waa halka suurigii ahayd qofka markuu meesha lagu xidho wuxuu samaynayaa uu iska laabayaa wuxuu saarayaa wuxuu iska dul saarayaa cawskan horteena ayaan guran jirnay cawskan wax badan buu noo qaban jiray waa qolkan la yiraahdo chief iyo joog run ahaantii dadkii soo maray ayaa garan kara adoo halkaa ku jira ayaa waxaad ilaahay ka baryaysaa caawa inaan lagula bixin habeenkii markuu maqrib ay noqoto ayaa meeshan dhibaato ka bilaaban jirtay habeenkii adoo halkaa ku jiro ayaa waxaad xir garanayso dhammaan sheegaysaa ood akhrisanaysaa ilaahay halkaa inuu kugu nabadgeliyo un caawa run ahaantii naxdin nooga badan mana soo marin 4 sanoona halkan ku jirnay habeenna nabad kumaanan seexanin maxkamaddu waxay ku xuntay 3 sano ay ku xukunto 3 sano markay ku xukunta la soo celiyay macalisi macayus halkii baa lagu celiyay macalus marka lagu siiyay waxa tahay flash la siiyay oo maanta sariirtiis bunti ugu sareeyay flashka loo xidhay batay marka meeshii lagu celiyay waxaan ku jiray tala 2 bilood kala ku jiray waxa la geeyay guri ay asay ku jirtay iyagoo 230 oo khadiir ma marka ka maqnaa inta kale waxa ku joogan 30 dhalinyaro ah oo iyagoo kiisaska noocaas loo haystay kii halkii baan ku jiray 4 bilood oo kale waxaan qaadaha guriga kale lagu soo maray waxa kamid ah injil baan aad noo gashay suuligu la dhacay 230 qof baan nahay soo kala jeesanayna dar lagama meereeyo wax lagu siinay mid to biyaha lagama qaado xarka lagama daadinayo wax biyo lagu siinay mid to ma meerinaysi wax
markaa maxaa nagu dhacay injil badan baa nagu dhalatay markaa waxa injil ma aragtay saad iska urunaysid markaa ciqaabihii nagu soo maray tan waxay ahayd dhibaatooyin badan bana soo gaaray waxaana soo gaadhay in xaarka laga daadin waayo in loo meeri waayo inta baan laga jiri waayo in maaragtay cudurrada nagu dhacay halka lagu soo gaaray waxa kamid ah afku inuu na daato ta kale xiliyaha inay farin naga soo daataan cudurrada ugu badan baa dubka iyaga inuu isbedelo ayay noqotay markaa mas-uuliyiinta la soo maraa waxaan baryaynay inta yar inaan qorraxda fadhiisano 15 daqiiqo dhibaatooyinka markaa qorraxdu inay ay tahay faytamiin ama qorraxdu qaali tahay waaga baan ogaanay ta kale guriga waa muddi waa ku dabeelay inta iyadoo dhan imka ragga aragta muraada waxa noo xaday waa madowgii weyn qorraxdii iyo madowgii iyo wixii dhan ta kale chief iyo joog guri leeyahay waa soo mariyay waxa ku jira bil baa ku jira chiefka suuriyaal wey suuriyaashii hoos laga baneenay waa tigtoona suuriyaasha qofku ma chief ma fadhiisan karo mana chief secret waa taagnaanaysaa qof inta leegna waa la jaray halkan aan joogno waa qaybta markaasi koowaad ee jiif iyo joog la dhaho ee markaas waxaa ku xidhnaan jiray sad arkaysaan waa suuliyo waana qol markaasi aad u yar dad markaasi iyagu macallimiinta xaafidul quraanka ahaa ee markaasi ilaahay karaameeyey oo halkan markaa iyagu loo ciqaabi jiray sad arkaysaan isla markaana ay kala kulmeen tacadiyo kala duwan waan garan karnaa qolkan hadda markaan soo dhex istaagno inta uu ka kooban yahay waa 1 mitir iyo 1 mitir iyo badh waana meeshaan arkaysaan ciriiriga isla markaana suuliga ah oo hoy u ahayd dadkii marka ilaahay karaameeyay ee markaas xaafidul quraanka ay macallimiinta ahaa waqtiyada qaar waxaan dhihi jiray markaan arko 760 macallin oo xaafidkii quraanka ah 760 macallin oo xaafid quraan oo xafaadii magaalada jigjiga macallimiinta ka ahayda marka halka hortayda qolkan gal hortiisa lagu qaawiyo ee lagu garaacayo jirkeedu si uu noqon jiray كتاب القرآن أنا أخريه وعن حصتها كل القراءة الماضي يقول على كتاب القرآن كله جرت حبوا من قبل كانوا حملي تذكر كلام سياسيين تاين درجات كتير مساسو كلام لو كل شيء تذكر الصومالية ما كسر حد الشباب بالتين رايستي يجمع وعن حص طويل وهي بيدبات هذا ما كسر قبتين محافظة النسيم كسر قال فضو أفمن ما يقول نحوين قال وجينا الميرا جيل بلدين يمين وقال بلدين ميرا سدي بالو صوت كاسوكا هل كان وحكتري بقول يا فرتون كل شيء تاي ديارة السرية حمل اللون تذكر نوع عسوكا اللي بتفر بدل بسوق سوري مركحوي ناس أيام كعشتا مركحوي وحوي ووح إلهي بقركا لورم حد علمي ما أنت شرط لنا عن كويتم بلادكم كحدنا ما أنت أنا بحر إن أن أهل كقاعد إلهي يقول سمي الحمد لله رب العالمين بالله عد كستروا مسؤولية هسروا عن كل هذا الدارمية إن يدقن كي نوعها وكلا إن كون تودو هذا وحكوا سجلنا هاي qaybta markaasi qolka saddexaad lagu magacaabo oo iyaduna ka kooban 8 qol oo markaasi ah 4 iska soo horjeeda bal gudaha ayaan u geli doonaa si aan u ogaano waxyaabaha halkan lagu sameyn jiray dadka sidii loola dhaqmi jiray tirada dadka markaasi calaaqo lagu xiri jiray inta mitir ee markaasi ay ka kooban yihiin gudaha u gal waa tahay qolkan ayaa waxa uu ka kooban yahay mitir ahaan marka aan sharaxaad ka bixino 3 mitir oo dherer ah iyo 2 mitir oo ballac ah iyadoo markaasi naloo sheegay in markaasi lagu xiri jiray qolkan in ka badan 40 ruux ama hadba inta uu qaado ee tira ahaan dadka iyadoo aan garan karno markaas su'aasha la isweydiin karo qolkan oo qaadi karo 4 ruux ama 2 ruux in markaas lagu xiro 40 ruux taasina ay tahay wax ka baxsan xuquuqda bini'aadamka qolkaas waana suulina waa arkaa inuu yahay soo suuligaas baa dadka lagu caqabadeyn jiray maxaabiista waa lagu soo xareyn jiray 50 nin baa lagu soo xareyn jiray marka 50 nin ma qaadayo oo laba qof agayso loogu talagalay iyadoo 50 loogu talagalin baa marka ay halka mari waayeen cag lagu xareyn jiray iyo bud baa la soo riixi jiray marka la soo qaayay riixo halkaas aan ku jiray iyadoo chief male waa la taagnaanaya qofku soo taagan yahay baabiyo loogu soo yaa loo buuxinayaa meesha wuxuu taagnaanaya 3 bilood rag baa taagnaa oo lagu heeyay galkii ka dhacay oo 3 bilood taagnaan jiray qofku soo u taagan yahay badii wuxuu soo gorrayaa qaarka dambe soo taagan yahay qaarka dambe buu gorrayaa lagu heeyay wuxuu wax xalxalayaan biyana wuu kula jiraa wuuna taagay mana fariisan karo sida uu taagan yahay lagu markaa xalxalaan waa wada qarqarxaya hadduu